kulanti wacan saaxiibayaal waxaan ahay Cismaan Xasan Makoma hadii aad kamid tahay saaxiibada ku xiran barteeda waad ku maasan tahay hadii aad ku cusub tahay hadda kamid noqo saaxiibada ku xiran barteeda maanta waxaan idin wadaa muuqaal aad u murugo badan aadna u xanuun badan halkani waa xaafada Buulxuwey ama Ceel Qalow sidaad u taqaano halkani waa dac ay biyo aad u wasaq badan aadna u ur badan ay ka buuxaan halkani ayaa ka dhacday musiibo aad u foolxun oo qof walba oo Soomaali ahna ay oo aad u taabanaysa qalbigiisa waxa dhacday sida aan indhahayga ku arkay iyo dad goobjoogayaal ahna ay ii xaqiijiyeen wiil dhalinyaro ah oo da'diisa gaaraysa daahan 20 sano ilaa 22 jirka ayaa rag halkani ku cabaayeen xashiish iyo koolo waxay isku dayeen in ay ka dhacaan moobilkiisa raggaasi ayaa la sheegay inay ahaayeen ciyaal mindiilay ama ciyaal weero raggii ayaa damaaciyeen inay wiilkaasi dhalinyarada ah ka qaataan moobilkiisa gacanta ah laakiin wiilkii ayaa isku dayay in uu ka baxsado raggaasi moobilkiisa iyo naftiisana uu ka badbaadsado laakiin nasiib darase waxa dhacday yarkii inuu cararo kadib orodkiisa laba koox ayay ahaayeen koox waxay ka soo galeen dhinacaas kooxda kale dhinacan yarkii ayaa dhaxda galay marka labada koox yarkii labada jid ay ka soo kala galeen inuu ka baxsan karana ay aad ugu adkaatay naftiisana ay siin weyday inuu dhulka caadiga ah ku sii cararo wiilkii ayaa door biday inuu ku cararo ama naf uu ka raadiyo halkan muustada ah oo biyaha urka badan oo ka buuxaana inuu naftiisu ku aamino yarkii ayaa meesha orod ku galay halkii uu ka cararay mindida iyo raggan oo naftiisu uusan ku aamini karin moobilkiisa kadib dhiiqadii ayuu lugihii la galay dhiiqadii ayaa la dumtay biyihii ayaana ka sarmaray kadib biyihii ayaa liqay yarkii meesha ayuu ku biyo cabay halkaas ayuu ku dhintay saacadana markaas dadka koobjoogayaashu waxay ii xaqiijeen inay ahayd 7 ilaa 8 laakiin soo saaridda meydka wiilka ayaa qaatay in ka badan 2 saacadood ilaa 3 saacadood ehelada iyo ciidamada ammaanka iyo asxaabta wiilka ayaa goobta aad u soo buux dhaafiyeen goobta ayaa ciidan fara badan yimaadeen iyo gurmad kadib waxaa la galay baadigoobka meydka wiilka sidoo loo baadigoobayo waxay qaadatay saacad ilaa 2 saacadood waxaa laga soo saaray wiilkii oo dhintay halkani indhahayga ayaan ku arkay waana kor tagay wiilkii oo biyo ka dharga ayaa laga soo saaray nin inta xarig lagu xiray ayuu inta galay oo wiilkiina xarig kale lagu soo xiray ayaa la soo jiiday banaanka sida lagu soo bixiyay wiilkii eheladiisa asxaabtiisa iyo dadkiisa la wareegeen ciidamada ammaanka waa dhiiqadii oo aad u urbadneed iyo wasaqdii meesha ka buuxday ayaa ka buuxay indhihiisa iyo dhagihiisa kadib waa laga nadiifiyay waa laga raacsiyay gaari yar oo cad ee meesha saarteen kadibna meedkiina sidii lagu qaaday indhahayga waxay kaleeto ay qabanayeen ehelada iyo asxaabta marxuumka oo goobta ku ooynayaan oo aad ay u qiiroonayaan waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan muuqaalka meydka iyo dhacdadaas aad ku xanuunta badan waa idin soo bandhigi karaa laakiin anigoo dhowray indhihiina iyo dhagihiina darteeda ayaan u soo gelin waayay laakiin waxaan jecelaystay inaan intaan idin la wadaago